Marwada Koobaad ee qaranka SAYNAB Cabdi MACALIM ayaa safar shaqo ku timid dalka Turkiga kadib martiqaad rasmi ah oo ay ka heshay dhigeeda dalka Turkiga Emine Erdogan. Marwada SAYNAB ayaa kulan gaar ah magaalada caasimadda ee ANKARA waxay kula yeelatay dhigeeda dalka Turkiga, waxaana looga hadlay xiriirka soo jireenka ah ee Soomaaliya iyo Turkiga iyo sidii loo xoojin lahaa iyadoo dowladda Turkigu ay Soomaaliya ka taageerto dhinacyo badan. Kulanka waxaa si gaar ah looga hadlay arrimaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka, sidii loo horumarin lahaa tacliinta haweenka, arrimaha nabadda iyo horumarinta. Dhinaca kale, Marwada Koobaad ee qaranka SAYNAB Cabdi MACALIM ayaa lagu casuumay munaasabadda maalinta Afrika oo lagu qabtay xarunta dhaqanka ee guriga Afrika, iyadoo maalinta Afrika loo qabto munaasabado kala duwan. Munaasabadda maalinta Afrika oo ay qabteen Marwada dalka Turkiga Emine Erdogan iyo wasaaradda arrimaha dibadda qaybteeda Afrika, waxaa sidoo kale ka soo qayb galay safiirka Soomaaliya ee Turkiga Jaamac Cabdullaahi Caydiid, safiirada dalal ay ka mid yihiin Liibiya, Congo, Niger, madaxweynaha hay'adda TIKA, marwooyinka safiirada Afrika ee ku sugan dalka Turkiga, iyo ardayda Afrika ee wax ka barta dalka Turkiga oo ay qayb ka yihiin arday Soomaaliyeed oo deeq waxbarasho ka helay dowladda Turkiga. Marwada Koobaad ee Soomaaliya SAYNAB Cabdi MACALIM ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa waxay ka jeedisay munaasabadda maalinta Afrika. Waxay ugu horreyn ka hadashay taariikhda Soomaaliya iyo siday hormuud ugu ahayd qaaradda Afrika iyo muhiimadda uu leeyahay xiriirka Turkiga iyo dalalka Afrika. Marwada SAYNAB waxay ka hadashay xiriirka walaalnimo ee Turkiga iyo Soomaaliya iyo sidii uu shacabka Soomaaliyeed Turkigu u garab istaagay waqtigii adkaa. Waxay sheegtay inuu yahay saaxiibka dhabta ah kadib markii madaxweynaha Turkiga oo xilligaasi ra'iisul wasaare ahaa iyo marwadiisu ay booqasho taariikhi ah ku tageen Soomaaliya sanadii 2011, taasi oo indhaha caalamka ku soo jeedisay. Turkey is a true friend and supporter of Somalia. We cannot forget. Waxay uga mahad celisay madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan iyo marwadiisa hiilka dhabta ah ee ay Soomaaliya u muujiyeen, iyagoo ka hirgeliyay mashaariic kala duwan sida dhismaha wadooyinka, guryaha, isbitaalada iyo dugsiyo waxbarasho, iyadoo sidoo kale Turkigu uu tababar siiyo ciidamada Soomaaliya. Marwada Koobaad ee qaranka SAYNAB Cabdi MACALIM waxay khudbadeeda ku xustay shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airlines oo duulimaadyo toos ah oo caalami ah ka bilowday dalka kadib burburkii kuna xidhay caalamka intiisa kale, iyadoo hadda shirkado badan oo caalami ah ay door bidayaan inay Soomaaliya duulimaadyo kala duwan ka sameeyaan. Ugu dambeyntii, munaasabadda maalinta Afrika waxaa soo xidhay Marwada Koobaad ee dalka Turkiga Emine Erdogan, iyadoo ku dheeraatay xiriirka Turkigu uu la leeyahay dalalka Afrika iyo taageerada kala duwan ee uu siiyo, taasi oo qayb ka ahayd waxyaabihii munaasabadda lagu soo bandhigay. Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwiish, magaalada Ankara.